Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada muuqaal cusub. Kala goosida jirka waxaa ku hareeraysan xub alla uga dhigay difaac. Xubkaasoo dhexdiisa waxaa ku jiro dheecaano hawshoodu ay tahay in lafaha ka ilaaliyaan si aysan isku xoqin dhaawacan u gaarsiinin. Marka aad jucinaysid kala goosida sida gacmaha oo kale, waxaa kala sikanayo lafaha, waxaana hal mar kusoo qulqulayo dheecaankii isagoo booskiisa ka saarayo hawada ku jirto. Hawada sida kediska ah looga saaray kala gooska ayaa keenayso cod aad maqlaysid marka aad jucinaysid, sida dhuc, dhac ama qajac. Tani waxay la mid tahay dadka juciyo qoortooda ama dhabarkooda ama kala goosyada ee kale ee jirka ku jiro. Waxay badanaa dadka sameeyaan arrintan markii ay daalan yihiin ama ay welwelsan yihiin, laakiin waxaa jiro dad ay caado u tahay in ay la qabsatay welibana aan jooji karin. Badanaa qofka markuu kala gooska jucinayo wuxuu dareemaa khafiif iyo firfircooni kala gooskaas ah, laakiin waa muddo gaaban. Tani waxay timaadaa isbeddel ku yimaado cadaadiska kala gooska, waxayna qaadataa 25 ilaa 30 daqiiqo si aad mar kale u juciso ama jucis u samayso. Waxaana la qiyaasi karaa 25% in ay juciyaan kala goosyada, waxayna ku badan tahay ragga. Saameyn ma ku leedahay caafimaadka juciska kala goosyada? Si looga jawaabo su'aashan, waxaa la sameeyay dhowr cilmi baaris iyadoo lagu eegayo in juciska lafaha uu keeni karo xubno xanuun ee loo yaqaano arthritis. Waxay cilmi baarisyada badankood lagu soo gabagabeeyey in uusan jirin xiriir ka dhaxeeyo xubno xanuunka iyo juciska lafaha, laakiin waxaa la raaciyey dhowr talo oo muhiim ah. Haddii aad horay u qabtay xanuunada kala gooska oo galo, waa in aad ka fogaatid juciska lafaha. Tani waxay dhaawac gaarsiin kartaa laastikada ama carjawda lafaha ee isku hayo ee loo yaqaano cartilage. Haddii aad qabtid xanuunka rheumatism-ka uu yareeyo dheecaanada kala gooska ku jiro, wuxuu juciska keeni karaa ama lafa juciska uu keeni karaa in lafuhu ay isxoqaan oo halkaas ay halis ka dhalato. Haddii lafahaagu ay tacbaan yihiin oo uu jirkaaga ku yar yahay maadada loo yaqaano calcium, waa muhiim in aadan juciska joogteynin ama aadan la qabsan. Tani lafahaaga ayay burburin kartaa. Haweenka dhalmadeyska ah inta badan waxaa lagu sheegaa xanuunka loo yaqaano osteoporosis, iyagana waa looga digaa lafa juciska. Fadlan ha dalban inuu qof kuu juciyo, waa dhaawac oo aad ugu talagelin uu gaarayo seedaha lafaha isku hayo ama carjawda ricidada kale ee celceliso qoorta iyo dhabarka ku jiro booskeeda ay ka soo baxayso. Haddii aadan lahayn xaaladaas kor ku xusan, juciskaagana uusan joogto ahayn, lama hayo wax caddaynayo in aad ka dhaxli doontid xubno xanuun ama dhibaatooyin kale. Waa mahadsantihiin. Halkan ayaan kusoo koobaynaa cashirkeena. Is aragti dambe oo xiiso leh. Wabillaahi towfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.